بسم الله الرحمن الرحيم. فدغ فريدو waxaa marti nagu ustaad Mustafa Sabriye Timcade oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe. Mustafa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wararkii ugu dambeeyay ama dhacdooyinkii ugu dambeeyay kulankii Mareykanka ka dhacay Donald Trump iyo Netanyahu ay isku yimaadeen iyo xaaladda guud heshiiskaasi oo la rabo in lagu soo gabagabeeyo dagaalkii أستاذ عبد السلام ومحسنت هاي حالة ودن بيدي قبل كبرجة دحية وحوها هشيس كله سواي مدحين دونالد ترامب رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو waxay ahayd in la gaaro xal maadaama dagaalkii gobolka bariga dhexe uu galayo muddo 3 sano ah wax natiijo ah aysan gaarin dawladda Israa'iil halka Falastiiniyiintana dhibaato fara badan ay la kulmeen taasi waxay sababtay in madaxweyne Trump miiska uu saaro inuu qaato aragtida ahayd two state solution oo waxay ahayd one state solution laakiin one state solution waxba qabtaa inaysan hadda wax shaqeynaynin laakiin waxa ku jirta in dawladdaasi Falastiin loo asaasi doono maamulka Israa'iil maamul raali ka yahay oo noqonayo ama Mareykanku gadabada ka riixay marka wax ku qabtaa in hadda yani arintu dhanka kale isku yani weecatay taasina waxa sababtay maadaama culaysyo badan oo dhanka Israa'iil saaran yahay Mareykanka oo wadamo badan oo Yuruubiyaan ay aqoonsadeen maamulka Falastiiniyiinta sidoo kale shirki gulaha guud ee qaramada midoobay wufuudda caalamiga ah ee ka dareereen waxa kaamirooyinka soo qabanaya wafdiga Soomaaliya oo hulka ka sii baxay markii ra'iisul wasaaruhu taasina waxay sababtay in sumcaddii Israa'iil dunida ay ku leedahay inay soo dhamaatay marka hadda waxay wada xaajoodku noqday in one state two state solution la qaato laakiin qaabka looga dhaadhici doono Xamaas iyo dawladaha Carabeed waa wax u baahan in wali su'aal furan su'aasha kale ku weydiina waxay tahay seen ognahay Ingiriiska iyo Canada iyo Australia way aqoonsadeen Falastiin aqoonsadeen ma la dhihi karaa marka meeshaasi waxaa jiray heshiiskii waxa la yiraahdo ballanqaadkii Balfour 1917 Ingiriisku ballanqaadka sameeyay oo na dhisay 48 diina asagoo u ahaaba sababka dawlad Ingiriis la dhiso dawlad Falastiin dawlad Israa'iil la dhiso ma la dhihi karaa marka 100 sano ka bacdi wuxuu rabaa inuu saxo Ingiriisku waa marna waa la dhihi karaa maxaa yeelay Ingiriisku wuxuu ahaa kii kuweysiga ku wareejiyay dawladda Yuhuudda gobolka bariga dhexe oo dhan maxaa yeelay markii burburtay dawladda Cusmaaniyiinta 1917 magaalada Gaza iyo dhulka Falastiin waxa qabsaday Qudus magaalada barakaysan ay ku jirto dawladda Ingiriiska markii dambe Ingiriiska asaa dhulkan wadajiyay maadaama carqalado fara badan Israa'iil laga tabtay hadda waxay rabaan in qaladkoodii saxan asbuucii hore waxaan ogeyn in xafiiskii Falastiiniyiinta ee magaalada London loo wareejiyay safaarad rasmi ah taasoo cadeynaysa in la soo xiro waayihii Falastiiniyiinta oo konsilaanta marka wadamo badan oo Ingiriiska kaliya ma aha Faransiiska ayaa isagana aqoonsaday taasina waxa ay sar u qaatay qiyamka dadka Falastiiniyiinta dawladnimada Falastiiniyiinta ka hor dagaalka 7 Oktoobar meeshu yaala maanta ma yaalo oo adduunyada waxa la leeyahay halalaha dadkan dhibaataysan dawladna ha loo sameeyo marka graafiskii wax u qabtaa dawladnimada oo wawltii hore ma ahayn dawlad jira calankoodu wuxuu ahaa magac u yaal laakiin hadda waxa la qabtaa in maqaamkii dawladnimada meel sare gaaray Falastiiniyiinta waxaan ku soo gabagabeynaynaa dawladda Cusmaaniya waxay dhacday 1923 laakiin halkan Ingiriisku wuxuu la wareegay 1917 oo la wareegay su'aasha u dambeeyay tahay gabagabada waxay tahay waxa jira la yiri guddi loo sameeynayo guddigaas oo la rabo inay maamul u noqdaan magaalada Marinka Gaza ay u sameeyaan warar isqalaafsan ayaa ka soo baxay guddigaasi oo inta badan saxaafaddu waxay leeyihiin Tony Blair ra'iisul wasaarihii hore Ingiriiska ayaa guddigaasi madax ka noqon doona walow Donald Trump asagoo isku sheegay inuu guddigaasi gudoomiye u yahay madaxweyne inuu u yahay marka ma moodaa mesela markii dagaalkii labaad adduunka uu dhamaaday 1945 dhamaaday wadamadii guuleystay markay la siinayay xorriyadda la siinayay in maamul sida Soomaaliya oo kale ay u sameeyeen 10 sano la yiraahdo dawlad gaarsiin hadda ma moodaa marka wixii oo kale in dib ay u soo bilowdeen runtii ayada sidaasna waa la dhihi karaa maxaa yeelay dawlad Falastiin oo hadda oo rasmi ah ma jirin awood waxay ahayd kooxo iska caabin ah iyo dawlado taag daran oo magac u yaal ah laakiin hadda qaabka la rabo oo haday wax u dhacaan in la sameeyo maamul Falastiiniin laakiin reer galbeedka
ka amar qaadanayo maxaa yeelay Israa'iil waxyaabahay ku andacoonayso wax ka mid ah haddii Xamaas looga leexdo Gaza in dhici doono wixii dhacay 7 Oktoobar oo khasaare weyn Israa'iil u geystay marka dunidan casriga ahna waad ogtahay dawladaha awoodda leh waxay adeegsadaan baawarka ay dawlad kale ku garab istaagayaan waxa ummadda reer Falastiin inta loo dhibaateynayay waxay ahayd in maamulka Yuhuudda nabadgelyo uu helo maamulka Yuhuudka inuu nabadgelyo helana waxay ku helaysaa in laba dawladood siman la noqdo inta Falastiiniyiinta 70 sano dawlad la'aanta yihiin iyadana Israa'iil hal habeen hurdo kuman ladin nabad marka runtii waxaan isleeyahay haddii ay dawladnimo sax la sameeyo waxay soo afjaraysaa mid ka mid ah colaadihii laba dawladood ama laba shacbiyadood adduunyada dhexmara hadda 100 sano ayaaba wax badan ka dhamaaneen marka inkastoo dadaal ay bixinayaan reer galbeedka haddana dadaalkaasi ma ahan wax miro dhalay intaasaan rabnaa inaan ku soo gaabino baahinteennan waa fadhiga firido وما سنتي